أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaanu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo Ramadaan. bishaan waxaanu soo qaadanaynay duruus ramadaaniya oo qaybaha bishu ay tahay tilmaamaysa qayb walba, maadaama hadda cashrul awaakhirkii aynu soo gaarnay 10kii bisha ugu dambeysay. waxaa munaasab noo ah inaanu soo qaadano habeenka la yiraahdo laylatul qadri la yiraahdo. waxaana soo gaarnay casharkeenii 23aad ayaanu soo gaarnay oo duruusteeni ramadaaniyadeed ka mid ah. waxaan soo qaadanaynaa laylatul qadri, habeenka la yiraahdo laylatul qadriga iyo habeenkaasu fadaaisha uu iska leeyahay, ayadoo ay dhici karayso inaan markaasi dhowr cashar aanu u qaybino oo markaasi si waafi ah aan isku dayno in markaasi laylatul qadriga looga faa'iideysto. waxaan horay u soo marnay in qur'aanka kariimka ah bisha ramadaan la soo dejiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhahay: shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhudaa waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum. horay aanu maaragtay u soo marnay markii fardiyatu soomi ramadaan aynu ka soo hadlaynay duruusteennan bilowgeedii markii aynu joognay. marka qur'aanka in la soo dejiyey bil ramadaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aanka ku caddeeyey. haddana marka ilaahay wuxuu noo caddaynayaa qur'aanka in la soo dejiyey habeenka markaasi laylatul qadriga ah oo bisha ugu khayrka badanna in haddana habeenkaas qur-aanka la soo dejiyey oo habeenkaas khaaskaa qur-aanka la soo dejiyey ayaa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogaga waramayaa. maxaa yeelay allah wuxuuna dhihi doonaa: innaa anzalnaahu fii leylati alqadr. waxaanu dejinnay qur-aanka kariimka ah habeenka leylatulqadriga ayaanu dejinnay. marka bishaanu waxay ku sharafowday waxyaabo fara badan ayay ku sharafowday. leylatulqadrigaas oo ilaahay uu leeyahay khayru min 1000 shahrin oo bisha ramadaan ku jira, iyo qur-aankii kariimka ahay oo munasalka ahay oo kutubtii dhammaanteeda lagu khatimay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey bishaan barakaysan oo ramadaan alla uu soo dejiyey, gaar ahaan leyladii ugu khayrka badneeda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey. marka insha allahu tacaala waxaanu qaadan doonaa habeenka la yiraahdo laylatul qadri ayaanu maaragtay qaadan doonaa. qaadashaduna waxaa weeye waxaan ku qaadan doonaa camalka la sameeyo habeenkaas iyo sanad walba waxaa weeye sida laylatul qadri ramadaan uu ugu jiro oo markaasi camal fara badan ee looga faa'iideysanayo iyo fadaa'il fara badan. habeenkaas qiyaamkeeda oo la xoojiyo faa'iidada iska leedahay iyo asbaabaha markaasi laylatul qadri keenay iyo waqtigiisa iyo markaasi madaahibta culummada islaamka siday markaasi ay u caddeeyeen isuguna khilaafsan yihiin. calaamaadka habeenka laylatul qadriga lagu garanayo arrimahaas oo dhan ayaa markaasaa noo imaanaya. sida saxiixa oo mashhuurka oo la og yahay, laylatul qadrigu waxay khaas ay ku tahay oo gooni ay ku tahay ummaddan ummatul maxamed ayay gooni ku tahay ilaa maalinta qiyaamo laga gaarayane oo qiyaamadu ay ka qumaysana baaqi ayay ahaanaysaa oo bil kasta oo ramadaana ayaa maaragtay lagu haleelayaa.
ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo tilmaamaya habeenkaas sharafta uu iska leeyahay alla waxa uu yidhi innaa anzalnaahu fii leylati اlqadr wamaa adraaka maa leylatu اlqadr leylatu اlqadri khayru min alfi shahr tanazalu اlmalaa'ikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amr salaamun hiya xataa madlaci اlfajri uu dhahay alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala annagu waanu dejinnay qur'aanka ayaanu dejinnay waxaan dejinnay fii leylati اlqadri sharafka habeenkiisa ayaanu dejinnay habeenka sharafka badanneh ayaanu qur-aanka dejinnay ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala leylatu اlqadri leylatu sharafi alcadiim weeye waa habeen markaasi sharaf weyn iska le oo ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta markaasi uu amraayo oo markaasi waxaa weeye qur-aanka ay akhrinayaan habeenkii la soo dejinayo qur-aanka lawxulmaxfuud ayaa laga soo dejiyey jumla waaxida ayaa looga soo dejiyey hal maraa laga soo dejiyey waxaa qur-aanka la keenay meesha la yidhaha beyt alcuza ow beyt alcuza oo markaasi samaa-u dunyaa ku taala waatou dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suxufin mukaramatin marfuucatin mudaharatin biaydii safaratin kiraamin barara waatou dhah ilaahay markaas kabacdi yaa rasuulkeena calayhi salaatu salaam qur-aanka si mufaraqa oo kala tagsan calaa xasabi alwaqaa'ic hadba xaaladaha jira iyadoo markaasi lagu cabiraayo ayaa ilaahay ku soo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam 23 sano oo nabigu calayhi salaatu wasalaam 13 sano maka uu joogay 10 sanana madiine uu joogay ayaa qur-aanka isagoo mufaraqa calaa xasabi alwaqaa'ic ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu soo dejiyey laakiin jumlo waaxidaa hal mar ayaa lawxulmaxfuud laga soo qaaday markaasaa samaa-u dunyaha la keenay sida ilaahay qur-aanka uu ku caddeeyey iyo xadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaas ayaa markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dhowrkaas iyo 20 sano ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam looga soo qaadayey hadba xaaladaha jira iyo waqaa'icda dhacaysa ayadoo lagu cabiraayo ayaa halkaas la keenayey ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxa uu yihi innaa anzalnaahu fii leylati اlqadri annagu qur-aanka waanu dejinow dhah ilaahay habeen leylatu lqadri ah oo leylatu sharaf wa tacdiim ah ayaanu soo dejinnay ayadoo markaasi sharafkeeda la weyneynayo ayaa alla wuxuu yihi wamaa adraaka maa leylatu اlqadri maxaa ku ogeysiiyey leylatu lqadri waxay tahay aada iyo aad ayaa macnaha waxaa weeye sha'nigeeda iyo cadamadeedu uu wen yahay waa tacdiimun lisha'nihaa weeye sha'nigeedaa la weyneynayaa markaasaa istifhaam ahaan ilaahay rasuulkiisa waxuu ku leeyahay wamaa adraaka maa leylatu اlqadri maxaa ku ogeysiye leylatu اlqadri waxay tahay waa sida tana uu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala leylatu اlqadri khayru min alfi shahrin habeenka leylatu lqadrigaahi waxay ka khayr badan tahay 1000 bilood oo aan leylatulqadri ku jirin cibaado la cibaadaysto ayay ka khayr badan tahay halkaas habeenoo la cibaadaystay wamaa adraaka maa leylatu اlqadri leylatu اlqadri khayru min alfi shahr now ilaahay habeenka leylatulqadrigaahi waxay ka khayr badan tahay 1000 bilood oo leylatulqadri aan lahayn leysa fiiha leylatulqadri leylatulqadri aysan ku jirin macnaha waxaa weeye barakada ay u leedahay ilaahay addoomankiisa oo ay ka helayaan habeenkaas ayaa khayru min alfi shahrin 1000 bilood ka khayr badan weeye camal saalixa oo la sameeyo wuxuu ka fadli badan yahay 1000 bilood oo leylatulqadri aysan ku jirin camal la sameeyo ayay ka khayr badan tahay sidaasaa laga wadaa hadda marka 1000 bilood maxay noqonayaan 1000 bilood waaba kasii khayr badan tahay ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala khayru min alfi shahrin ayuu dhahay ilaahay mubaalaqa ahaan ayaa hadda 1000kaasaa loo sheegaa la leeyahay ee leylatulqadrigu fadaaisha iyo khayrka ay iska leedahay
ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka addoonkiisa ahoo bishaas ramadaan ilaahay uu waafajiyo uu helaayo waxa weeye wax la qiyaasi kara maaha. hadda kunkii biloodaaba haddii sanooyin laga dhiga waxay noqonayaan 83 sano iyo 4 bilooday noqonayaan. marka 83 sano iyo 4 bilood qofka mu'minka oo waxa weeye haleelay oo haddana ay dhici karta sanad kasta inuu haleelo waa nicmo aan maaragtay la soo koobi karin waaye. sidii ummaddan ummatul muxameda loogu talagalo khaasiyada ilaahay uu subxaanahu wa tacaala ugaga dhigay habeenkaas ayayna caddaynaysaa. marka hadda 83 sano iyo 4 bilood qofkii nool dadku waxay u arkaan inay dad qof cumri badan gaarta ay tahay oo 80 jir weeye qofkan markii la yidhaahdo waa arrin yaable weeye. hadda marka haddii qofku sanad walba leylatulqadri uu haleelo ee intaasoo sanooyina camalkoodii ou u xasilo, hadda waxaa meesha ka muuqanaysa in ummatulmuxamed ummad ilaahay u naxariisay oo cumrigooda alla u barakeeyey inay tahay oo ummadihii hore aysan markaasi la mid ahayn. marka haddana ilaahay waa sii tilmaamo waxa uu dhahay tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amr. waxaa soo degaya malaa'ig ayaa soo degaysa, malaa'ig weliba la macrifeeyey ayaa soo degaysa u dhahay alla subxaanahu wa tacaala. waxaa soo degaya ruuxi oo malakul jibriila oo si gaara loo khasisay asaga ilaahay idankiisa ayayna maaragtay ku soo degayaan. amar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ayay la soo degayaan. malaa'igtan soo degaysa waxaa weeye waxaa malaa'ig la yidhaha sukaanu sitrati lmuntaha, meesha sitratulmuntaha la yidhaahdo ayay malaa'ig degan oo halkaas ku nool weeyaa la yidhi. malaa'ikatu sitratulmuntaha ayaa la yidhi amase keyrkoodaba. ruuxaana waxaa weeye waa malakul jibriil oo waa towdha ilaahay nazala bihi ruuxu lamiinu calaa qalbika litakuuna min almundiriin ayaa ilaahay dhahay subxaanahu wa tacaala. waxayna la soo degayaan amar ilaahay uu amray shay kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadiray ee sanadka kan ilaa sanadka kaloo soo socda waxyaabaha dhacaaya ayay markaasay la soo degayaan oo suxuful malaa'ika ku yaala ayay markaasay la soo degayaan. arrintaas ayay marka takhdiidihayaan oy shaandhaynayaan sanadkan maaragtay ay leylatulqadriga ilaa sanadka kaloo laga gaarayo leylatulqadriga intaas ayay waxaa weeye wixii jira ayaa suxuftooda malaa'igta lagu qorayaa. markaas arrintaasay markaasay ka hadlayaan. haddana ilahi wuxuu dhahay salaamun hiya xataa madlaci ilfajri. waxa weeye malaa'igta ayaa salaamaysa ilaahay addoomankiisa ilaa fajarka salaada subaxa uu ka dhalanayo waqtigaas ayay ku eg tahay. habeenkii markii qoraxdu ay dhacdo ilaa waxa weeye waagu uu ka baryo fajarka salaada subaxa laga gaaro intaas ayaa malaa'igta soo degaysa ayay waxa weeye addoomanka ilaahay ay salaamayaan. sida la wariyane habeenka leylatulqadriga markii la gaaro malaa'ig ayaa arlada u soo degaysa oo salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankiisa ka soo gaarsiinaysa. ha noqoto malaa'igtaas la yidhaha malaa'ikatu sitrati lmuntaha amase keyrkeeda ha noqoto. marka waxaa weeye guri kama tegayaan oo qof mu'min oo raga uu ku jiro iyo haween mu'minada ilaa waa ay gelayaan. markaasay waxay leeyiin yaa mu'minu ow yaa mu'mina assalaamu yuqri'uka asalaam. ninkan mu'minka ahow ama haweentan mu'minadda ahay allaha salaamka ayaa salaam kugu akhraaya ilaahay salaam ka guddoobay leeyihiin. shardi ma ahan marka salaamtaas ayna soo gaarsiinayaan iyo hadalkaas kooda inaan maqalno shardi ma ahan. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa caddaynayo salaamun hiya xataa madlaci ilfajri ou dhahay alla subxaanahu wa tacaala. oo waxaa weeye hiya salaamun xataa madlaci ilfajri. waxaa weeye salaam weeye habeenkaasoo malaa'igta ayaa waxay salaamayaan dadka mu'miniinta oo ilaahayay salaam ka soo gaarsiinayaan ilaa fajarka salaada subaxa laga gaarayo. marka suuraddan waxaa ilaahay uu ku caddaynayaa habeenkaas leylatulqadriga waxa la sameeyo
iyo waxyaabaha habeenkaas dhacaaya iyo sanadkaasoo dhan waxa dhacaaya oo malaa'igtu ay ka hadlaayaan iyo camalka la sameeyo fadaa'isha gaarka oo iska leeyahay ayaa markaasaa waxaa weeyaa looga hadlayaa. suuraddan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga waramay in qur-aanka kariimka ah la soo dejiyey bil ramadaana, gaar ahaan habeenka leylatulqadriga oo nabigan uu dhahay calayhi salaatu wasalaam lilaahi fiihi leylatun khayru min alfi shahrin man xurima khayrahaa faqad xurima, oonu duruusteenna hore aanu ku soo marnay, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen gaara ayaa uu ku leeyahay bishan ramadaan oo markaasi ka khayr badan 1000 bilood. qofka khayrkeeda laga hoojiyana waa qof la hoojiyey ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka taas waxa weeye waa habeenka leylatulqadriga la yidhaahdo. habeenkan leylatulqadriga rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qiyaam la sameeyo iyadoo si caamaba nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan qiyaamka la samaynayo salaada loo kacayo uu ka hadlay, ayaa haddana nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis laga wariyey abu hureyre waxa uu dhahay man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi. rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis abu hureyre uu ka wariyey, qofkii kaca ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenka leylatulqadriga man qaama leylata alqadri weye. hadda leylatulqadriga qiyaamka waxaa la rabaa biniya saalixa, niyo wanaagsan inuu qofka uu ku kaco. gufira lahu maa taqadama min dembihi, dembigiisa kii horeeye waa loo dhaafayaa. imaamu axmed iyo maaragtay annasaa-i riwaayaday siyaadahoy leeyihiin waa maa ta'akharaa ku jirta. marka hadde leylatulqadriga qiyaamkiisu inta uu yarow ku xasilo waxaa weeye sida culummada islaamka axaadiistana laga qaatay ay sheegeen, waxa weeye labada salaadood oo cishaha iyo salaada markaasi subaxa oo jamaaco lagu dukado waxaa ku xasilaya qiyaamkii oo leylatulqadriga ku xasilaya. maxaa yeelay labadaas salaadood jamaaco lagu dukado si aad iyo aaday u fadli badan tahay. waatow dhaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam man salla alcishaaa fii jamaacatin fakaannamaa qaama nisfa leyli. qofkii waxaa weeye dukada salaada cishaha jamaaca ku dukada wuxuu la mid yahay habeenka nuskiisa isagoo qiyaamuleyl u taagnaay. waman salla subxa fii jamaacatin, salaada subaxana qofkii jamaaca ku dukada fakaannamaa salla leyla kulah, waxay ka dhigan tahay habeenka dhammaantiisa isagoo soo jeeday oo dukanayay ka dhigan tahay. laakiin hadda waxa weeye akmalulqiyaam, qiyaamka markaasi kamaalkiisu waxuu ku xasilayaa habeenka dhammaantiis oo la nooleeyo cibaado lagu nooleeyo, abe habeenka mucdamkiisa oo cibaado lagu nooleeyo sida salaada iyo qiraa'atulqur'aanka iyo dikriga iyo wixii lamid oo anwaacu daacaada in lagu nooleeyo ayaa markaasaa qiyaamka kamaalkiisa oo ku xasilayaa. laakiin hadda waxaa la leeyahay cishaha iyo salaada subaxa qofkii markaasi jamaaca ku haleela leylatulqadri waa haleelaa leeyahay. ajirka iyo sawowga iyo fadaa'isha ziyaadadaasa waxay ka imaanaysaa hadba qof walba sida habeenkaas oo u nooleeyo oo waxa weeye markaasi habeenkaas u nooleeyo ayay ku xiran tahay. rasuulkeenu markaas wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man qaama leylata alqadri, leylatulqadriga qofkii quma iimaanan rumayn daraaddeeda waxtisaaban ajir dalab oo ajir uu dalbaayo, rumayn uu rumaynayo. hadda ka horna waan soo marnay wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisu ka sheegeen iyo asagoo muxtasib oo ajir dalbaayo. waxaa weeye meesha waxaa la rabaa niyo saalixaa in lala yimaado. markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gufira lahu maa taqadama min denbih, dembigiisa wixii hormaray waa loo dhaafayaa. wamaa ta'akharana riwaayad kale ayaa aheeday. hadda dembigaana xadiis sidaana oo hore u soo marnoon soo ta'wiilinay oo aqwaashi culamaa ulislaam ay ka dhaheen aanu maaragtay soo qaadanay iyo ta'wiilkiisii. xadiiskaasoo horay ahay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih. marka hadde dembiga kan laysu dhaafaayo horaan u soo marnay waxaa weeye jamhuurtu sida ay qabto dunuubta sakaa'irta ah oo xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysa saasay jamhuurtu qabaan.
dunuubta hadday kabaa'ir tahay kabaa'irta waxay isku leedahay towbada baabu towbo ayaa markaasaa laga akhriyaa markii la joogo shuruud ayay iska leedahay hadday xuquuqullaahi tahay 3 shardiyay leedahay xuquuqul aadami haddii lagu daro 4ay noqonaysaa oo dadkii waxaa weeye la dulmiyey in cafi laga dalbo ah arrintaasay markaasay iska leedahayoo taasaa in lasoo maraa loo baahan yahay waan soo marnay horta xadiiskii horena isaguna oo ahay bacdulculamaa'i markaasi inay yidhaahdeen xadiiskan daahirkiisaa lagu daynayaa maxaa yeele fadliga ilaahay waasac weeye haddana alla subxaanahu watacaala xadiiska kan ama rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sida daahirkiisa hadda kuma cadda in markaasi dunuubtu ay kabaa'ir iyo sakaa'ir ay u kala baxsan tahaye waxa uu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gufira lahu maa taqadama min dembihi ayuu dhahay fadliga ilaahay iyo wuscigiisa iyo bishaan barakaysanoo ramadaan khayrkeeda iyo leylatulqadrigaas haddii la fiirshane waxaa imaan karta ilaahay addoomankiisa inuu ku tafadulo oo ilaahay dunuub nooc kastay taaba alla u dhaafa subxaanahu watacaala taas iyada laftirkeedu wax qarsoon maahan xadiiskaas marka waxaa wariyey umahaadkao dhan ayaa wariyeen gaar ahaan markaasi usuululkhamsa inta la yidhaahdo oo bukhaari iyo muslim iyo abi daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i intaas ayaa maaragtay wariyey inta kale ayaguna waa ay wariyeen oo xadiis saxa weeye waxaan marka hadda soo qaadanaynaa habeenkan leylatulqadriga horey waxaan usoo dhahnay waa habeen khaas ku ah ummaddan ummatulmaxamed ah waxaana uu ka dhashay arrimankanoo xadiis rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laga wariyo abu hureyre ka wariyaa wuxuu ahaay annahu uriya acmaara annaasi qablahu ow maa shaa allahu min dalika fakaannahu taqaasara acmaara ummatihi an laa yabluguu min alcamali maa balaga gayruhum fii duuli اlcumri faacdaahu llaahu leylata alqadri khayru min 1000 shahrin xadiiskaasoo imaamu maalik kitaabkiisa muwadaca uu ku wariyey waxaa la wariyey oo nabiga calayhi salaatu salaam saxaabiga abu hureyre layidhah uu ka wariyey abu hureyre waxau dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam ayaa waxaa la tusiyey ummadihii ka horreeyey ummaddantiisa cumriyaashii dheerdheeraay oy iska lahaayeen cumrigii dheeraay o iska lahaayeen ayaa la tusiyey uriya acmaara naasi qablahu ow maa shaa allahu min daalika rasuulka calayhi salaatu salaam waxaa la tusiyey dadkii maaragtay ayaa ka horreeyey cumriyaalkoodii iyo wixii ilaahay oo doono oo arrimahaas ka mid ah arrintaas markii la tusiyey fakaannahu taqaasara acmaara ummatihi nabigu calayhi salaatu salaam waaba isagoo aada iyo aada u yaraystay acmaasha ummadiisa ay la yaraatay anlaa yabluguu min alcamali maa balaga gayruhum camalka inaysan qaaraynin ummaddan ummatulmuxameda ummadahaas wixii ay gaareen oo camala maadaama cumrigoodu uu dheeraay markaasaa faacdaahu llaahu leylata alqadri ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa wuxuu siiyey ummadiisa habeenka la yidhaha leylatulqadriga kaasoo khayru min 1000 shahrin kun markaasi bilood ka khayr badan khayriyadaasna hadda waa midda hadda aanu soo maraynay oo nabiga calayhi salaatu salaam markuu ogaaday acmaarta ummaddii horo inay markaasi 500 sano iyo ka badan iyo 1000 iyo ay gaarayeen ayaa markaasi camalkoodii haddee camal badan ay ku samaynayaan cumrigaas dheer haddii arrintaas nabigu uu fiiriyey waxaa la yaraaday ummaddiisa acmaashooda ayaa la yaraatay ambase waxaa la yaraaday maaragtay cumriga ummaddiisaa la yaraaday inaysan haleeli karin acmaashaas saalixada ahoo cumrigaas faraha badanne ummadahaasu ay ku haleeleen ilaahayaa marka rasuulka calayhi salaatu salaam iyo ummaddiisa wuxuu siiyey leylatulqadri uu siiyey marka waxyaabo badanoo asarahoo la wariyana waa jirtaahoo arrintaas caddaynaayo xadiis imaamulbayhaqi uu leeyahay ibnu abi xaatim nabiga calayhi salaatu salaam waxaa loo sheegow dhahay maaragtay nin reer banu israa'iil ah oo hub qaatay fii sabiilillaahi jihaad fii sabiilillaahi qaatay 1000 bilood markaasi dagaalamayey marka ummadda ummatulmuxamed ahayd nabiga muslimiintii ummaddiisa ahayd ayaa la yaabay markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey leylatulqadri khayru min 1000 shahrin marka hadda sidaasaa ilaahay ummatulmuxamed cumrigeeda alla ugu barakeeyey
leylatulqadrigana waxaa weeye waa habeen ummatulmuxamed khaas ku ah. marka in sha allahu tacaala meesha ay ramadaanka ugaga jirto iyo meelahay ugu xoog badan tahay ayaan ayadana soo qaadan doonaa. waxaase ku soo qaadanaynaa casharkeenna 24aad ayaanu kusoo qaadanaynaa. hadda casharkeennii 23aad intaasuu ku egyahay. hada wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.